bismillaahi raxmaani raxiim akhyaarta hawada naga daawanaysaa waxaad ku soo dhawaataan warkii wehelka TV qodobadaad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid noqon doona waa sidii xaaladda magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya kadib degnaansho la'aan laga dareemayay saacadihii la soo dhaafay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya waxaad maqli doontaan xaaladda magaalada Muqdisho iyo sida shacabka reer Muqdisho ay u arkaan dibadbaxyadii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya oo ku dhawaaqay inay joogteen doonaan banaanbaxyada si ay shacabka u muujiyaan rabitaankooda iyo in dalka aysan ka abuurmin diktatoriyad waxaad maqli doontaan qoraal ay soo saareen midowga musharaxiinta dowladda federaalka Soomaaliya Jubbaland oo mar kale sheegtay inay ka fiirsanayso shir uu iclaamiyay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday oo lagu qabanayo magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya qodobadaasi qodobo ay ka mid yihiin shirkadaha duulimaadyada Turkish Airlines iyo Djibouti Airlines iyo Ethiopia Airlines ayaa hakiyay duulimaadyo ay maanta ku iman lahaayeen magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya qodobadaasi iyo qodobadii nagu soo kordhay ayaad ku daawan doontaan warkeena u diyaargarow warkaasi oo faahfaahsan aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya maanta waxa maanta degan xaaladda magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya kadib degnaansho la'aan laga dareemayay saacadihii la soo dhaafay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dib u furay wadooyin muhiim ah ee caasimadda Muqdisho kadib markii lagu waabariistay jimcihii shalay dhammaan wadooyinka magaalada Muqdisho oo xiran dowladda federaalka Soomaaliya ayaa talaabadaasi ugu gol lahayd ka hortagida banaanbaxyo ay iclaamiyeen golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya kaas oo qorshuhu ahaa in jimcihii shalay uu ka dhaco taalada daljirka Daasoon ee degmada Boondheere meelaha qaar waxaa ka dhacay iskoorimaadyo huweysan kuwaas oo sababay khasaare nafeed saacadihii u dambeeyay maalintii shalay xalay ilaa iyo maanta waxaa si caadi ah u soo noqday dhaqdhaqaaqyadii magaalada Muqdisho waxaana maanta furan wadooyinkii shalay lagu waabariistay iyagoo xiran dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay inuu aad ugu xun yahay wixii Muqdisho ka dhacay isagoona eedeynta wixii ka dhacay dusha ugu tuuray midowga musharaxiinta dowladda federaalka Soomaaliya dhinaca kale midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay inay joogteen doonaan banaanbaxyada si ay shacabka u muujiyaan rabitaankooda inay dalka aysan ka abuurmin diktatoriyad qoraal ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta ayaa lagu sheegay in dagaalkii shalay ka dhacay Muqdisho iyo weerarkii lagu qaaday xubno ka tirsan midowga musharaxiinta mas'uuliyadiisu uu leeyahay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay sheegeen inuu rasaasiyay dad nabad u banaanbaxayay golaha midowga musharaxiinta waxay horey u aaminsanayeen haddana u cadaatay in madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uusan nabad iyo xasilooni u rabin dalka daacadna ka ahayn inuu galo doorasho loo siman yahay sidaas waxa lagu yiri qoraal ka soo baxay midowga musharaxiinta madaxweynaha waxay sheegeen inay horey u aaminsanayeen haddana u cadaatay in madaxweynihii hore Farmaajo uusan nabad iyo xasilooni u rabin dalka daacadna uusan ka ahayn doorasho loo siman yahay oo ka dhacda guud ahaan dalka ugu dambeyn waxay sheegeen in madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo arkeen inuu yahay dambiile qaran uusan si nabad uga qayb gali karin xal u helidda siyaasadeed ee dalka kala guurka loona diido inuu ka qayb galo doorashada sida uu qabo dastuurka ku meel gaarka madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Siid Aadan ayaa sheegay in Jubbaland ay ka fiirsanayso ka qaybgalka shir uu ku dhawaaqay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Maxamuud Siid Aadan oo la hadlay BBC-da waxa uu sheegay in Jubbaland ay muhiim tahay inay shirkaasi ka qayb gasho hase ahaatee haatan aysan u muuqan wadadii ay uga qaybgali lahaayeen waxa uu si cad u sheegay inay qiimeyn doonaan xaaladda magaalada Muqdisho oo saacadihii la soo dhaafay ay ka dhaceen dagaalo u dhaxeeya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa taageersan midowga musharaxiinta dowladda federaalka Soomaaliya war ka soo baxay maamulka Jubbaland ayaa ku soo beegmaya xilli dib u dhacay shirka wada tashiga doorashooyinka kaasi oo qorshuhu ahaa in Muqdisho uu ka furmo 18 bishan shirkadaha diyaaradaha Turkish Airlines, Uganda Airlines iyo Ethiopia Airlines ayaa hakiyay duulimaadyo ay maanta ku tagi lahaayeen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kadib rabshadihii saacadihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho qoraal ka soo baxay xafiiska shirkadda diyaaradaha Turkish Airlines ayaa lagu sheegay inuu baaqday duulimaadyadii diyaaradaha ee magaalooyinka Muqdisho iyo Istanbul iyagoona lagu wargeliyay dhammaan rakaabka in la hakiyay duulimaadyada maanta oo Sabti ah sidoo kale diyaaradaha
Ethiopia Airlines iyo Uganda Airlines ayay waxay joojiyeen duulimaadyadii ay maanta oo Sabti ay ku tagi lahaayeen magaalada Muqdisho macada go'aankooda maalmaha soo socda. Jimcihii shalay waxaa Muqdisho ka dhacay isku dhac u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo taageerayaasha musharaxiinta mucaaradka oo iclaamiyeen banaanbaxyo ay awood ku fashiliyeen dawladda federaalka Soomaaliya. Rabshadihii ka dhacay Muqdisho ayaa saameeyay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde waxaana gudaha garoonka ku dhacay madfac hawa kaas oo sababtay inay gubato qayb yar oo kamid ah garoonka Aadan Cadde. Guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaa warkii Wehelka TV intaan wararkan oo kale aan ku kulmino sidaas amaanada.